maalinta berri ah waxaa kusoo waajahan SSC Khaatumo halgamayaashii usoo halgamay SSC Khaatumo ee ugu horeeyo Cabdimutalib Aarsade iyo dhalinyaradii kale ee laga soo daayay dhawaan jeelasha SNMta ee magaalada Hargeysa. waxaa socdo guddi loo xisaaray qabanqaabadooda laga sameeyay magaalada Saanood kuwaas oo si weyn u soo dhaweyn doona. qodobkaas aan falanqayn doonaa. sidoo kale waxaan falanqayn doonaa isla maalinta berri ah idan waxaa dalka Kenya ku waajahan Somaliland madaxweynahooda Cabdiraxmaan Ciro isagoo waliba madaxweynaha Kenya kala hadli doono qaadka. waxaa laga hadli doonaa qaadka weeye. qaad tiro badan baa Somaliland ayaa la geyn doonaa. marka madaxweynaha Kenya hore buu sheegay in Somaliland iyo meelo kale inay qaadka kala hadli doonaan. idan barnaamijkaas waa falanqayn doonaa idan wixii aragti ah idinka dhanka hoose kusoo dhiibta. haddaan ku bilowno SSC Khaatumo waxaad ogeydeen in loo soo sii daayay maxaabiis mug iyo miisaan ku leh halgankii weynaa ee magaalada Laascaanood lagu xoreeyay SNMta dadka dhigyacabka ahaa dadka dhameynayay iska qalqalayay lagaga xoreeyay ilmaha yaryarka ee dhagaxa tuuraya mataqaanaa dilayay waad ogeydeen tii marka raggii u babac dhigay meesha mataqaanaa ka saaray yaa qaarna de way u godgaleen way dhinteen alla ya raxma mujaahidiin bay ahaayeen qaarna way dhaawacmeen kuwan waa loo xiray. nimankan marka halgamayaasha hadda Laascaanood maalinta berri kusoo waajahan waa halgamayaashii xabsiga u galay in dadkaas ay xorriyad ay ku noolaadaan. haddaba dadkaas marka dadku waxay inta badan xoog u garanayaan ninkii ahaa dee Aarsade oon garanaya darajada uu haystay. waxay aad u garanayaan ninkii ahaa Cabdilmutalib. laakiin rag kale oo waxaa jira iyaga laftooda aad qiime mataqaana u leh SSC Khaatumo oo halgankaas qayb weyn ka qaatay oo weliba hadalladii ay jeediyeen ee taariikhda galay hadalkii dib loo soo barbaaray aad loola yaabay. marka guddi baa loo xilsaaray. guddigaas waxaa guddoomiye ka ah Xijaar taliyihii hore ciidanka booliska Soomaaliyeed waad garanaysaan taliye Xijaar oo haddana wasiirka cadaaladda ka ah SSC Khaatumo yaa loo xilsaaray. waxaana guddigaas magacaabay madaxweyne ku-xigeenka Shiino yaa magacaabay iyagoo guddigaas ay qabanqaabin doonaan qaabkii loo soo dhaweyn lahaa saraakiishaas. waad ogeedeen maalmahan xurguf baa ka dhex jirtay Puntland iyo SSC dhanka siyaasadda. dadka shacabka dad walaalo ah way siyaasiyiin baa iyo wax kala geynaya. nimankan xitaa waxaa la lahaa ma tegi doonaan Laascaanood iyo meelo lamide. laakiin Cabdimutalib oo kale asaga waraysi u bixiyay hore u sheegay wuxuu yidhi aniga ehelkayga ku nool Laascaanood waana meeshii aan u dhintay u rafaaday u xiraa intaas marka waa ku khasbanahay inaan tago. laakiin in maxaabiistaas iyagoo idil oo dhammaystiran ee magaalada Laascaanood ay soo aadaan oo lagu soo dhaweeyo waxay sharaf u tahay guud ahaan beelaha Daarood. waxay sharaf u tahay guud ahaan beelaha Harti. waxay sharaf u tahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed. waayo meeshii ay u dhimanayeen ay u rafaadeen ee dhibkaas ku qabsaday oo iyadoo xor ah inay maanta ay tagaan wax weyn. waayo waxay ogaayeen meeshii oo mataqaanaa go'doonsan oo xabadda ka dhacayso oo magaaladii mataqaanaa lagu soo asqeynayo mataqaanaa rasaas habeenii maalin la duqeynayo yay ogaayeen. laakiin dhulkii oo xor ah maanta oo wax xabad ah kusoo dhacaynin oo dadka iska lahaa ay joogaan inay arkaan xaqiiqdu waxaa way wax si weyn noo soo dhaweynayna wey. marka SSC Khaatumo berri dareen noocay ah ayay bixin doonaan waa su-aalaha isweydiinta mudan. berri SSC Khaatumo may usoo wada bixi doonaan si ay ragga usoo dhaweeyaan dhiigoodii dhacaankoodii iyo maskaxdoodii iyo aqligoodii iyo hantidoodii iyo waxba ilaah u burburiyey mise in yar baa soo dhaweyn doonto. taa iyada ah markhaati waxay noqon doontaa markaan arrin Laascaanood si usoo dhaweysay halgamayaashaas. in baa bay ku taabayeen inay laftooda inay halgamayaashaas ay soo gaaraan. inkastoo dadka shacabka iyo dhalinyarada inta badanba ay garow iyo dhulkii ay marayeen ay ugu tageen oo ay sawirro la soo galeen oo ay soo dhaweeyeen haddana tan waxay mataqaanaa tusaysaa fiiro gaar ah
in halgamayaashaas ay arkaan dhulkoodii iyo dadkoodii oo aada usoo dhaweynaya. taas waa midaas oo waxaa weeye halgamayaasha kusoo waajahan magaalada laascaanood berri ah. cabdiraxmaan ciro wuxuu tegi doonaa dalka Kenya magaalada Nairobi. ninka hadda joogo xukunka dalka Kenya William Samoei Ruto hore wuxuu sheegay in madaxda Soomaaliya in uu kala hadli doono qaadka. weli wuxuu carabaabay wuxuu yidhi madaxda sida Somaliland iyo Jubaland iyo Puntland inaan kala hadli doono qaadka. haddana Somaliland waxaa weeye dadkan ugu horeeya lagala hadli doono qaadka iyo qayb ka noqon doonaan. inkastoo qaadka Ethiopia uu ku badan yahay, Ethiopia aad looga cuno, haddana mataqaanaa qaadkan Kenya mirooga in uu saameyn xoogan ku yeelan doono yay u badan tahay. inkastoo qaadka dhibkiisa uu yahay in qof ama shakhsiyaad in loo xiro oo markii loo xirana iyagaa keliya ay ka macaashaan, ummadda kale mataqaanaa gaajo ay ku laayaan way badan tahay. waan aragnay 100 jeer. marka inagoo og qaadka dhibka uu leeyahay, hantideennii burburiyey, ilkihii burburiyey, caafimaadkii burburiyey, wuxuu dhan ba ayadoo ognahay, iyo haddana waxaa noo sii dheer in hal shakhsi intii loo daba fadhiisto uu dadka kusii dhibaateeyo. marka waan ognahay dadka mataqaanaa cunana way ku rafaadsan yihiin, kuwa mataqaanaa gadana ku rafaadsan yihiin. keliya waxaa faa'iido kan geeyo, ninka geeyey keliya baa mataqaanaa yaa faa'iida. marka waxyaalo kalena way ka hadli doonaan, laakiin kulle ajandaha ugu daran ee laga hadli doono kaasoo mataqaanaa u badan yahay. intaas barnaamijka feerada wala wadaaga saaxiibada.